السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada janaalkeena fadlan haddaan uga cusub tahay subscribe noo saar haddaa hore noola joogteena like commentiska iyo shareka inta baana gudoobin maanta halka waxaan kugu soo gudbinaynaa qisa yaroo aad u xanuun badan oo run ahaantii wadnahayga taabatay ninkan waxaa rajeyn doonaa inaad wadnihiina taaban doonto oo u duceyn doontaan wiilkan shahiidka ah haddaba qisadan sidatan ayay ku bilaabanaysaa ninkana ujeedtaan waxaa la dhahaa haytham al cadami wuxuu dhashay wadankaasi yaman wuxuu kasoo jeeday reer saboolo waxba aanan haysanin wuxuu ku aansaday isagoo 17 jira inuu reerkiisa ugu shaqeeyo kadib abtigiisa ayaa shaqo la raadiyey waxaana loo soo helay nin ganacsada inuu la shaqeeyo halkii ayuuna ninkii shaqada kala bilaabay muddo markuu la shaqeynayay ninkii ayaa wuxuu sameeyey maalin maalmaha kamid ah haytham al cadami oo aada u daalan ayuu biyaha wuxuu ugu daray maandooriye ama daroogo halkaas ayuu ku suuxay haytham al cadami kadibna ninkii halkii ayuu wiilka ku farxumeeyey wiilkiina waxba kama ogeyn arintaaseeto saacado kadib wiilkii markuu miirkiisa helay ayuu wuxuu dareemay xanuun yar kadib wuxuu sidahay xanuunka waa xanuunka ugu cusub howshiisa iyo shaqadiisii ayuu iska sii watay kadib waxaa dhacday haytham wuxuu go-aansaday inuu guursado ninkii ganacsadaha ahaa ayuu la wadaagay arrinta wuxuu yiri waxaa rabaa inaan guursado ninkiina uu u farxay wuuna soo dhaweeyey wuuna caawiyey wixii qarash ahaa iyo garab istaag ahaa haytham sidii ayuu reerkiisii ku dhistay intaas kadib maalin maalmaha kamid a ayaa ninkii ganacsadaha wuxuu wacay haytham al cadami oona ku yiri waxaanoo kariyay guri weyn waxaa rabaa inaa qeyb adiga degtid iyo xaaskaaga qeybna aniga qeybna walaashaada haytham ayaa intuu yaaba wuxuu ku yiri walaashay maxaa meesha soo geliyey ninka ganacsadaha ayaa ku yiri walaasha waxaa rabaa inaan guursado haytham ayaa yiri hagaag laakiin waa inaad reerka la xiriirtaan sababtoo anay gabadh wilaayadeeda mahay si sharaf leh u doon reerkiina la xiriiraya abti ninkii ayaa ka ogolaaday kadibna wuxuu isku dayay inuu reerka la soo xiriiro iyo abtigii wiilashiina wuu soo fadhiistay gabadhii ayuu soo doontay reerkiina gabadhii waa u ogolaadeen intaas kadib maxaa isbedelay ninkii ayaa wuxuu codsaday inaanan la ogaanin guurka uu gabadhan guursanaya eena noqoto guurka wax qarsoodi ah reerkii ayaana ka diiday oo yiri gabadhana si sharciya oo dowladda da ku guursanaysid waan ku siineynaa laakiin wax la qarinaana karaanda kamanihna ayuu ku yiri ninkiina wuu iskaga tegay marka laga diiday go-aankii iyo qorshihii uu watay sida meesha ku cad ninka qorshihiisa maba ahaanba gabadha inuu guursado laakiin qorshe kale ayuu ka damacsanaa intaas kadib ninkii ayaa maalin soo wacay haytham kuna yiri walaasha waa inaad igu keentaa hotel hebel haytham ayaa intuu xanaaqo ku yiri sabab walaashay sababta hotelka ugu geenay maxay tahay ninkii ayaa ku yiri hataad walaasha ii keeni weyso waan ku fadeexeynayaa intaas kadib haytham oo yaabaya yiri fadeexa noocay ah ninkii ayaa wuxuu la soo wadaagay sawiro iyo fiidiyo uu ka haya maalinta uu soo xirsanaa wiilka uuna ka adeegtay haytham ayaa intuu yaabay naxay wuxuu sameeyey garan waaya talana ku xataatay ayuu wuxuu sameeyey walaalkiis ayuu la tashtay ka weynaa uu arrintii dhan ay sidii wax ku jiraanba u sheegay sidoo kale walaalkii ayaa ku yiri haytham isdeji aniga xalinaayo walaal sidee ku xalinaysaa waxaad sameynaysaa wuu ku yiri ninka wac waxaa ku tiraahdaa walaashay diyaar waa waan kuu keenayaa ku dhex anigana waa idin raaxayaa oo sidee adiga iska daa haye walaal ninkii baa haytham wacan ku yiri waa diyaar walaashay waan kuusoo kaxeynayaa intaas kadib waa la iswada raacay haytham walaalkiis ninkiina waa soo maray waa soo kaxey ninkii baa ku yiri haytham maxay taa walaalkaa nala socdo haytham ayaa yiri walaalkii meel dhexuu nooga degaya waxbaa ka welwelin sidii kusoo baxeen markii meel dhaxaa la maraayo ayaa haytham walaalkiis wuxuu iska soo jiray midi ama tooreeyo halkii ayuuna ninkii ku bilaabay inuu mididii gelgeliyo dhowr meer ayuu ka geliyey kadib gaarigii ayuu haytham istaajiyey oo walaal sidee wax yeeshay ayuu yiri wiilkii meeshii ayuu ka hararay kadib wuu baxsaday wuxuuna isku dhiibay ciidamada xoutiyiinta dhankooda ayuu ku biiray halka haytham uu isku dayay ninkan inuu badbaadiyo midida ayuu ka saaray isbitaal dhankeeda oo la hararay kadib ninkii wuu dhintay ninkii markuu dhintay haytham wuxuu isku dayay asagana inuu baxsado kadib waxaa qabtay ciidamada booliska oo musoo tagelin haytham al cadami inuu meesha u ka baxsado haytham waxaa lasoo saaray maxkamad dood badan iyo cadeemo oo tooreydii ay ka muuqatay gacanta haytham inuu mididii asaga gacantiisii kasoo baxda ayaa waxaa lagu xukumay 7 sano oo xarig ah haytham markaas wuxuu jiray wuxuu ahaa 17 jir oo aad ayuu u yaraa haytham 7 sano ayuu xabsiga kusoo qaatay waxaa u buuxsantay 24 sano 24 sano kadib haytham waxaa lagu xukumay dil toogasho ama in la daldalo asagoo wax dembi ah
kale aanan lahayn keliya lagu xukumay cadeymihii laga helay Touré-da. Warkiisii iyo cadeymihiisii iyo warbixintiisii cid aqbashay maysan jirin. Ninka la dilay cidda ka soo horjeeday ayaa ehelka ahayd Amar Cadami inta badan waxay ka codsadeen in wiilkooda ay cafiyaan ama diya ay qaataan. Ciddii ayaa laakiin ku adkaysatay in arrintaaniitu ay dhiig badan u daadan doonto haddii aanan ninkan la xukumin. Sidaasna maxkamaddu go-aan ku qaadatay in hay'adda Amar Cadami la xukumo. Hay'addan waxaa la geliyay xabsi. Muddadii uu xabsiga ku jiray 7 sano wuxuu ahaa nin iska cibaadaysta, iska faraxsan. Ehelkiisa markay u imaadaan soo buuqdaan farxad kula qaata. wax ka qasnaameysna wax muruga kamasa muuqanin. Kalaamka ilaahayna afkiisa kamuusan qaadeynin. Haydam ayaa ugu dambeyn waxaa la soo gaaray maalmihii mugdiga badnaa ee noloshiisii u dambeysay. Haydam waxaa soo booqan jiray ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo asxaabtiisa. Maalmihii u dambeysay waxaa bilaabatay macsalaameynta iyo sidoo kaleeto aragtiyadii ugu dambeysay ee Haydam Al-Cadami in ay la qaataan walaalihiisa. Waa maalmo xanuun leh, murugana leh, oohinteedana leh. Sida u jeedaan Haydam Al-Cadami wuxuu macsalaamaynayaa walaalihiisa maadaama xukunkiisa uu soo dhawaaday. Waa xanuun iyo calool xumo markaad walaalahaaga hal u macsalaameynaysid. Wuxuu ku jiraa noloshiisa saacadihii ugu dambeysay. Meeshana u jeedaan waa xabsigii markii laga sii wadaayay. Dharkan uu wato ayaa noqon doona midka lagu daldalayo. Sidoo kale Haydam Al-Cadami si qurux badan ayuu macsalaamayay walaalihiisa. Codsigii ugu dambeysay dardaaranka laga qaadaya wuxuu ahaa inuu dhahay ha iloobina xitaa haddaan dhinto ducadeeda ha iloobina. Marka waa arrin calool xumadeeda leh. Sida u jeedaan waa dardaarankiisu dambeysay uu leeyahay ha iloobina xitaa haddaan dhinto ducadeeda ha iloobina. oo jamac ahaan walaalihiisa ehelkiisa iyo asxaabtiisa dhammaan muslimiinta uu ugu tagay. Marka waxaan rajeynayaa anagana inaan comments kugu soo duceyno. waxaan rajeynayaa inaan wax badan ka faa'iideen. waa kana wuxuu joogaa meeshii lagu daldalayay wuxuuna codsaday inuu 2 rakac salaad tukado aakhiro saaca saacidihiisa.